iyadoo meel gabagaba ah uu marayo wacyigelinta caabuqa coronavirus ayaa waxaa gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir oo garab ka helaya urur goboleedka IGAD waxa ay kormeer ku tageen degmooyinka Hilwaa iyo Yakshiid waxayna u korgaleen siday u socoto wacyigelinta laga sameeyay degmooyinkaasi. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan si lamida gudoomiyaha degmada Hilwaa dhaqaatiirta ee dowladdu u xilsaartay wacyigelinta caabuqa ayaa waxay sheegeen in si weyn looga adkaaday cudurkan haatan uu marayo heerkiisii ugu liitay. ololaha wacyigelinta COVID-19 oo runtii door muhiim ah ka qaateen. barnaamijkan waa barnaamijkii ololahan ugu talagalnay dadka in lagu wacyigeliyo sida looga hortagi lahaa cudurkan safmarka ah oo runtii dhammaan adduunka oo dhan saameyn xooggan ku yeeshay. marka barnaamijkan waxaa la daahfuray qamiistii la soo dhaafay duq magaalada oo furay maalintii sabtigeedna waxaa la bilaabay in barnaamijkan lagu dhaqaaqo 17 degmo wacyigelintiisa. alxamdulillah maanta waxaan joognaa degmada Hilwaa, waxaan soo marnay degmada Yakshiid, waxaan ku soconay kormeerkii ahay habsamo socodka hawsha sida u socoto iyo dhalinyarada qaabkii iyo runtii inta ay gaareen. marka iyadoo noo sharaxay titor absuge dhalinyarada saakay sida ay u howlgaleen iyo qaabkii runtii meelihii muhiimka iyo bulshadii inta ay soo wacyigeliyeen. waxaan dhihi karnaa runtii waa guul in dhalinyarada maanta ay doorkii kaga aadanay wacyigelinta bulshada inay qayb muhiim ah ka qaateen. waxaan u mahadcelinaa maamulka degmada runtii oo mar walba garab taagan sidii dhalinyaradaas ay ugu qayb qaadan lahaayeen barnaamij walba oo ku aadan sidii dalkan lagu horumari lahaay, dalkan wax u tiri lahaay. waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho oo runtii fursadan dhalinyarada siiyay si ay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan. iyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa urur goboleedka IGAD oo runtii fursadan ayagana u keenay in dhalinyarada ay kaga faa'iideystaan. dhalinyarada dhakhtarka iyo supervisorkii degmada ku qornaa iyo dhammaan maamulka degmada iyo gudoonka dhalinyarada gobolka Banaadir oo gudoomiyaha Makaraan oo ugu horeeyo doorkii nooga aadanaa inaan wacyigelintii bulshada aan sameeyno. waxaan tagnay meelo muhiim oo inta badan ka kooban waxyaha kala duwan ee degmada Hilwaa ay ka kooban tahay, uguna badnaa deegaanka dadku ay ku nool yihiin xaafadaha oo inta badan intii aan ka gaarno aan u tagayno guri goobaha dadku ay ku kulmaan inta badan ee iskuulada, xanaanooyinka caruurta, dugsiyada iyo ay ka mid yihiin suuqyada ayaan qayb badan ka booqanay oo wacyigelinta u sameynay. waxayna bulshadu noo soo dhaweynayeen si wanaagsan oo ay dareemayeen inay wacyigelinta u baahan yihiin. degmada Hilwaa oo aad ogtiin ama aad aragteen inay ka socdaan ololihii wacyigelinta caabuqa coronavirus oo meel gabagaba ah noo marayo la dagaalankiisa. ololahan wuxuu soo socday muddo dheer oo ilaa dhowr bilood ah. halkan waxaan maraynaa qaybihiisa ugu dambeeyay, waxaana sanadkan ama markaan facekan waxaa naga taabageliyay ama naga gacan siiyay urur goboleedka IGAD iyo maamulka gobolka Banaadir. runtii meel fiican noo marayaan waxyaha kala duwan ee degmada waxa ka socdo, qaybaha kala duwan ee waxyaha waxa ka socdo wacyigelinta caabuqa COVID-19 oo ah cudur dilaa ah. alxamdulillah meel fiican hadda noo maraysa. shaqadii aan soo wadna maalmahan oo maanta kiban noo maraysa runtii waxaan ahayn team isku xiran oo aad iyo aad wada shaqeynay. si gaar ah waxaan u salaamaa teamkii ila shaqeynayay oo runtii farxad kaliya qaabka u shaqeynayeen iyo qaabkii shaqada ila wadaan iyo waliba gudoomiyaha oo aad ila shaqeeyay farxiyo. waxaan rabaa marka waxaa soo wacyigelinay dad aad u fara badan runtii aan dhihi karno waxay ahaayeen dad u baahan fursadan in looga faa'iideeyo. kaamam aad u fara badan ilaa 3 kaam oo dad aad u fara badan ay joogeen oo wax badan wacyigelin inay silin u maleenayo ayaan soo wacyigelinay. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Ariel TV, Muqdisho.